غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسؤال كمية سؤاله نيكو غوسكا سؤال شهدان هيناي وحي لهذا والد كدنتي إن سورة الإخلاص لو أخريو مية سوغانتا intaan garanaya jawaabtu waa maya. suuratul ikhlaas gaara oo gaar inta loo akhriyo waalid loo hibeeyo ama qof dhintay loo akhriyo ma sugna. laakiin laba mas'alaa la xiriirta. mid weeye sababtu asalku xaggee ka timid, maxayse tahay sababta suuratul ikhlaas? asalku waxay ka timid qur-aan la akhriyey oo ka mida cibaadaadka qofku sameeyey, thawaabkiisa qof dhintay ma u hadiyeyn karaa? qofkii aqriyey qur-aan la akhriyey, ikhlaaskuna suura qur-aankii bay ka mid tahay. markaan aqriyo ajirkeeda qofka aqriyey baa leh, ajirkiisii ma u hibeyn karaa qof kale? oo masala khilaafiya ah. ma waxaa lagala mid dhigayaa soonkii laga soomay, sakadii laga bixiyey, xajkii iyo cumradii laga sameeyey, sadaqadii laga bixiyey, ducadii loo duceeyey, min haadal baabi miyay geliyo iyadana haddaad u hibayso way gaadhi? ama qur-aan ha noqoto ama salaadaad tukatay ajirkeeda ha noqotay mise gaadhi mayso? mise lamid maaha, masala khilaafiya wey. munaasabaad kalan kaga jawaabnay. haddii la yidhaahdo way gaadhi, sabab bay leedahay suuratul ikhlaas oo tacdilu thulutha alqur'aani bay dadku marar badan ugu xishaan. qur-aanka thuluthkii bay u dhigantaa ajir ahaan. maadaama suurad yar ay tahay dadkuna wada yaqaanaan, ajirkooduna badan yahay, baa loo fududaystay. dabcan munaasabaad badan oo ay ku soo aroortayna way jiraan iyada si gaara, salaadaha gadaashooda marka la seexanayo 10 qofkii ka akhriya beytan fi ljannati baa looga dhisi tacdilu thulutha alqur'aani. munaasabaad badan qofkii jeclaada xubuka iyaha adkhalaka aljannata, fadaa'il badan bay leedahay. saa darteed waa suurad kooban dadkuna wada garanayaan, ajir badanna leh. waxay farac ka tahay qur-aanku inuu gaadhayo. waana asaxu lqowleyni saan munaasabado kaloo badan ku sheegay. wabillahi towfiiq. غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن.